إنا قف عفيو وحيقفل إنا قف دلو dadka shirqolkan ii dhig waa inaan raadiyaa laakiin adiga waxaa loo baahan yahay inaad u dhaqantid sida sirdoonka oo kale waxaan rabaa adigana inaad anaga nala shaqayso taliya doctor Cusmaan warqado uu ku keenay iyo xogta halkan ku jirto isma lahan doctor Cusmaan baxar ayaa ku jirnaa waa fashilmanay dhammaanteena waxaan ku wada xukumanahay dil haddii aanan gabadhaasi la dilin saaxiibayaal wax badan ay u faataxeeno no way meel aad aadis ma jirto laakiin dilka Mr. K iyo hooyadee maxaa iska galay 24 saac gudaheeda jooga halay keen haddii aad runta ii sheegayso ugu qolkan in meedkaaga laga bixin doono waxaan u maleynayaa inaan biri qalin leenahay isbitaalka gudihiisa yaa lagu sameyn xanaanada ku sameeya waxaan ogaanay xog sheegaysa in isbitaalka BB uu ka dhacay kaliya kala bedel waxaan rabaa inaan heshiis kula galo lacagna aan ku siiyo naftaada badbaadsato qof ogaaday booliskana u soo sheegay goobtan anaga ka shaqeyno ma kula tahay nolol inaan ku sii deyn doono way hadda maxaan sameeyaa gabadhaas xog badan ee naga haysaa waana in la dilaa sheekada dhan aan soo gabagabeeyay sideeda inaan ku jeclay soo moogid anigoo og weliba inaad adiga xiriir leedahay ayaan dan waxaan diyaar u ahay inaan agtaada kusoo dhawaado qalbigayga ku sii laakiin abeesaa igu noqotay dulli ayaa tahay shalmad raacaa tahay dhoocil kastana hoostaa ka gashaa maanta ani adi halkaanaa isku dambayso fiirnaya anigu idinka shakiyay horta qudbisir ma isku qabtay naagta ilaan waxay mukulaal foolhays camal maanta dhan isku badbadays qoftaana imaaday waa suuragal inaad ku wanaagsan tahay sida hablaha loo shukaamiyo laakiin u malayn maayo maamulada isbitaalka inay sidaa u sahlan tahay waxaa ka cabsanaya inaan waashto oo derbiyada la sheekaysto fureen xal maaha adaa jiis ee reerkaaga iska dhaqo waa ku jeclay run ahaantii ee diyaar mu tahay inaan ku guursado asma samatar kugu nikaahay qabiltu quraashaa igu taataabatay waa igu jaftay hadda intee gelaynaa cirkaa dheer dhulkaa dheer ugu dambeyn dambiilihii shabakadan oo idil maamulayay inaan gacanta ku soo dhignay goordhowna cadaaladda ayaan horgeyn doonaa waa ani adiga haddii cid ogaato